maamulka dawladda hoose degmada Berbera iyo sidoo kale taliska ciidanka dabdamiska ayaa saaka bilaabay kala saaridda 300 oo arday kuwaas oo tirtamiyay kamid noqoshaha 30 xubnood oo kamid noqon doona dabdamiska degmada Berbera. ugu horeyna waxa munaasabaddan ka hadlay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin inaynu halkan u taaganahay laba qayb taliyihii ugu sareeyay ciidanka ka hortagga ama la dagaalanka ilaahay subhanahu wa ta'ala laga qadarkiisa lagama hortagay laakiin waa la tacaalid weey dabdamiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxayna hortaagan ciidan dhisan oo quruxiisa iyo sharaftiisa iyo haybadiisa iyo karaamadiisa baa halkan dheenu waday ay ku doogsanayaan inaguna hadaynu reer Berberanahay waxaan doonaynaa inaynu kuwan in hortaagan oo kala hadii aan markii hore ahaan jirteen dabdamisku aan jireen heer degmo iyadoo degmadu mar walba roolkeeda leedahay iyo mas'uuliyadeeda haddana waxay soo diyaarinayaan inay noqdaan ciidan qaran waxaanu halkan waxaan u garanaynaa anagu inay ciidankii yihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku dhahdaa umaan u garanaynaa macataliyahooda halka dadka dhalinyarta fadhidan waxaan u garanaynaa in dhalinyarta reer Berbera ay yihiin doonaya inay soo baxaan oo ay shaqada Ilaahay subhanahu wa ta'ala cid u qorayna ku soo baxaan haddaanu cid jecelnahay iyo haddaan cid danaynayno taliyahana ma yeedhaneen ciidana ma yeedhan idinkana ma yeedhaneen inta isku xaafadana baan qoran lahayn waxa la doonayaa dadka reer Berbera dadkii ay ku nasan lahaayeen u adeegi lahaa oo dhisan in la helo waxaan idinka doonaynaa insha Allah way kordhi doontaa laakiin halkan waxa nooga soo baxday faa'iidada koobaad aan helay waxa weey in shaqada yar ee 30 qof loo doonayo 280 dhalinyaro ay soo taageen oo shaqo doonay halka waxaan ogaanay oo noo soo baxay in chance fara badan dhalinyartu ay u baahan tahay in shaqo la doono mas'uuliyadeeda ma aha dabdamiska qudhe inaanu shaqo kula doono aanu ku ogaano aanu diiwaan gashanaato oo meel kasta shaqo ki aan halka ku soo bixin aan insha Allah la baadi doono waxaan ku xulanaa akhlaaq waxaan ku xulanaa aqoon sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka dabdamiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guuto Axmed Xasan Sawaaxili ayaa isaguna halkaasi ka hadlay dawladda hoose oo hogaaminaya mayorka aad baan ugu mahadinayaa soo dhaweynta iyo kalsoonida ay siiyeen maanta Berberi waa maalin cusub waxay ugu cusub tahay shaqo aan hore u jirin iyo cilmi aan hore u jirin ayaa maanta la bilaabaya idigoo kaliya ma aha qoladana dharka caadada aragtaana maalin basiin ahaan jireen laakiin dadaal baa lagu keenay waxaan oo dhan marka maanta waxa arki doontaan gobolada oo dhan iyo asaaska dabdamiska waa sidii lagu bilaabay ma wax idin gooniya imtixaankan physicalka way wada mareen theory way wada mareen xagga shaqadana shaqadu way cusubtay waa shaqo aan hore loo arag waa shaqo adkaysigeeda rabta waa shaqo akhlaaqdeeda rabta waa shaqo wada jirkeeda rabta team work baa lagu shaqeynaa hadda dabdamis maqashid waa ciidan meel ka wada dagaalamaya hadduu mid yara liico ama mid shaqada yara xumeeyo teamka dhan baa liicaya marka team work waxa laba ayaa lagu shaqeeyaa Kamti Ismaan Ali 5 Somali TV magaalada Berbera.